xigeenka iyo nidaamyaha baarlamaanka iyo xildhibaan Soomaaliyeed horta dad badan ay dhahay u soo taagay aniga haween baan haweenka xaqoodina waa inaan helaa sida haweenka loo yahay laakiin waxaan saxayaa koontada kama soo bilaabanin bigaad kama bilaabanin xakama bilaabanin koontada haweenka waxa keenay xildhibaanadii 2000 ee carta waxaa siiyay bixiyay madaxweynaha Jabuuti qeyr Allah siisan waa haweenka annagoo dulman oo taagan ayaa waxana la siiyay 100 erga ah iyo 25 gabdhood oo Soomaaliyeed ah la siiyay 25 gabdhood oo Soomaaliyeed waxa lagu xulay beelal lagu xulay gabdhaha dadaayo koontadan gooriha noqoto beelal lagu soo xulay 25 gabdhood 5 beelood oo Soomaaliyeed oo joogtaa min 5 gabdhood la siiyay la kala sarreeyay marka aniga gabdhaha Soomaaliyeed xarbeen u sheego idaacadaha waa aragteen marka la fadhiyo ama shirarka la galayo waxa weyn kuma jiraan waxana loo quursanay waxa weeye waxa leenahay anaga kootadana hana la siiyo anaga sida aan waxba ahayn wanaag siyaasiyiin aan nahay gabdho Soomaaliyeed oo siyaasiyiin aan nahay aniga ninka waa inaan ka qaada kursiga waa inaan la tartamo ninka ka qaada waa inaan xaq aan leeyahay haweenkan halka ay yaalaan laakiin hadaan iraahdo beeraha waa artay adduunka kale wili ma artay qolal la koota loo xiray oo haweena loo xiray ma jiraan marka waxa la gabdhaha Soomaaliyeed oo halka joogo hadaan cilada kala sheegana oo la kala yaacaya mar raba inaan hadlo inaan wax ku daro mar rabo waxa way qofka siyaasiga ah oo inuu noqdo rab xildhibaan wuxuu noqdaa siyaasi ma baryootamo tartan wax ku qaataa tartan ay wax ku qaataa mid baan sheegaya marka aniga waxaan joogo ilaa waxaan soo bilaabay 20 sano aan jooga aniga Zayn isma qarinay dadka gabdhanay meehi ani weekii militaar ahna xagga baarlamaanka ma qaraysin waxa la rabaa waxaan u qabtay aniga haween Soomaali 20 sanadood ma jirto waxaan qabtay ma jirto Allahumma balaqto sababtoo haddaan gabar Soomaaliyeed soo kaxeeyo aan keenin shaqo haddaan gabar Soomaaliyeed soo qabto dhakhtar keenin haddaan caawinaynin walaalayaal haweenkanaga halkan waxa u fadhinaa reerahanaga iyo ciyaalkanaga inaan korsanee siyaasadda ma fadhinee hal la maqla haweenko waa maqayin hadda maanta dhan waa qaylineen aawa gabdhihi halka wax kuma hayno haween haddaan nahay Soomaaliyeed raganagan u dayno waxaan ku qurux badanahay ciyaalkanaga iyo ubadka inaan haysano wixii hadda ka dambeeyay aniga beeshinaabana habo qof aan ku haysto kursi ma jirto wabillahi tawfiiq العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد مدن قدوميه مدن يا المرويين اللي انا شرفت له waxaan ku salaamayaa salaatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba'd salaam mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan ka hadlo ajandahan maanta la keenay qodobka qodobbada haweenka Soomaaliyeed ee sharafta leh xaq bay u leeyihiin inay helaan boqolkiiba 50 iyo ka badan laakiin waxa meel ka dhaca in la yiraahdo boqolkiiba 30 ama boqolkiiba 24 ay hadda ku fadhiyaan haween kaliya ayaa loo xirayaa taasoo ka hor imaanaysa dastuurka qodobkiisa 11 oo ka hadlaysa hanaanka cadaaladda iyo sinaanta haweenka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay waddanka hogaamiyaan waxay u tartami karaan degmada waddanka ugu sareysa madaxweyne laakiin marnaba lama dhihi karo qodobada ama kuraas haween ay hadda ku fadhiyaan siday sheegtay wasiir Khadiija rag baa la soo tartamay haween badan oo shafar oo halka fadhiya waxaan ognahay kuraastooda aysan ku dhicin rag badan oo halka nala jooga 5 iyo 6 rag ay ka soo qaateen marka ma wax la aqbali karo in kuraas khaas loo xiro haween iyadoo aan ognahay kootadii boqolkiiba 30 ka ahayd ee lagu asxiyay shirkii doorashadii ka horeysay tan 2016 in la soo xaqiijiyo deegaanadii iyo reerihii keenay boqolkiiba 30 ka soo buuxiyay xaq uma lahan in kuraas kale ama nambaro kale la dul saaro waa in laga raadiyaa meelaha ay ku maqan tahay mudane gudoomiye guud ahaan anigu sharciga waxaan u arkaa guddiga ka soo shaqeeyay inay soo dhoobeen waxaan ahay wixii loo diray waxaa jira qawaaniin ku tartamay rag iyo dumar ku tartamay dumar ay soo qaateen wixii oo dhan baas ku dhaxlaaqan iyadoo xuquuqda boqolkiiba 30 la ilaalinayo haddana waxaa muhiim ah in la ilaaliyo waxaa jira qawaaniin ku heshiis inay wareegto noqoto isku wareejiyaan ayaa jira waxaas dhan iyadoo jiraan waxaan qabaa mudane gudoomiye in lagu qoro
kuraasta boqolkiiba 30 ah kuraasta ay ku soo dartamaan dumar iyo rag isidooda ay ugu tartamaan kuraasti kale ee loo xiray hadeer hadii laga dhigayana in hadeer looga dhigo lagu cadeeyo sharciga laakiin haddii la sameeyo saas waxa imaanaya kuraas area oo laga soo qaatay qawaanida qaarkood waxa la yaab qabiil kursi uu leeyahay kursada iyada rag ku tartamay kursiga dumar uu soo qaatay haddii loo xiro heerka iyaga ayaa inama tartamaysa waxay noqonaysaa in lagu tumanay mudane gudoomiye qodobkaas saas in loo saxan qabo waxa kale oo sidoo kale